السلام عليكم أصحابتا سو دوادا waa kursiyada ka qaybteedii tobanaad السلام عليكم أصحابتا soo dhawaada waa walaalkiina Dirji Cusmaan janka daawanaysiina waa Dirji Cusmaan muuqaalkeena maanta ee course wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo image behind sida kan oo kale hadda si aad u sameysid waxaa ka xigta kaliya daawad muuqaalkan sida uu ognahay waxaana socday koorsooyin muuqaalkan waa qaybtii tobnaad haddaba haddii jecesha noqotid qof soo gudbiyo content ama jecel fadlan dhameyso koorskan soo bilow qaybta koowaad ilaa qaybta tobnaad waxa inaad wax ka fahmaysid naguna soo bir channelkeena Telegramka kaas oo aan ku wadaagno waxyaalo yar aan YouTube soo dhigi karin oo basic ah soo bir waxaan saari doonaa comment ugu horeeya sidoo kale waxaan ka codsanayaa channelkan waa channelkeena labaad waxaan ku qoran Dirji Editor asan subscribe noo saar wixii noo dhiirigelin ma sanid haddaba yaa warna ku daalin waxaa sameyn doonaa muuqaalkan inta usoo maxalliyi baahan yahay taas ma isku sheegay sababta aniga waxaan socotay course application ku soo degsan yahay si loo soo geliyo waa taqaana jaa muuqaalkii kaliya wadooyinka la mar lahayd isla fiirin doonaa taasna waxaan ku fiirin doonaa in aadno shaashada telefonka هاي صاحب يال سودوادا هذا وحن سمي دونا فيديوغا اوكي marka saan soo gashto kabkudka muuqaalka ha isdhihin oo ha isdhihin ninkan meesha ka bilaabay maxaa waaye ana sida kabkudka muuqaal loo soo geliyo hore u soo dhigay qaybta koobaad ilaa sagaalaad intuu dhexeys soo daaway saa u fahanted basiga hadhowana hay eedin say u soo gelisay iyo intee ka bilaaba hay dhihin hada jaa kabkudka muuqaal soo gelisid muuqaalka rabtid inaad gelisid waa kan fahanted okay muuqaalka hadda kan waa aram inaad gelino maxaa sameyn doonaa muuqaalka markuu san yahay arabtid inaad gadaal sawir gelisid ama tagasta gelisid waxaa sameyn doontaa muuqaalka taabo markaad rabtid muuqaalka duplicate laba xabo ka dhigo duplicate kadib kii duplicate saan kuu saaran weli saan u soo wad meeshaan overlayda taabo saan ku noqdo soo weli saan u sii dooran suulka dhag ku sii saan la soo sinkan fahanti waa idin fududeynaa soo daqiiqadaha idin kugu dheeraan okay saan waay waa muuqaalkii iyo overlayga fahanti markan overlayga oo layerka taabanayna marka taabana saana u soo baxayna waxaa radinaa remove background dhehena kadib automatic remove la dhehena mida automatic asaa iska jaraa macnaha backgroundka kadib saxa dhehena hadda waa noo jaran yahay okay waxaa soo geli doonaa markii sawirka intaan soo gelin horta kow afyar horta meesha sawirka soo geli lahayn baliya dhehena muuqaalkeena maanta ee course wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo image behind sida kan kale meeshan camal soo geliyana okay waxaa taaban doonaa sida loo soo geliyo sawir overlay ahaan ama sticker waa taqaanaa ku baray overlayga taabo aad overlay dheh kadib raadi waa kan sawirka dooro kadib adde hadda waa kana sawirkii asaa u soo hormaray okay la sin horta hore qaabkiisa okay waa isla siman yihiin markii kabkudkan loogadan kabkudka ama sawirka see marka gadaal marsiin doonaa adoo iswaalnin sawirka kabkudka le taabo saan u soo bax meel layers ku qoran tahay arkaysaa layers ka taabo kadib muuqaalkan kan kabkudka maana kan kale kan taabo dhinaca kabkudka sawir isbedelayaan jida kan inta geey maanti hadda kan inta geeyna kabkudka korsoo marayo hadda kan inta geeyna kabkudka gadaal marayo marka waa kaasa sax dheh kabkudka taabo calaamad kabkudka wax ka wada macnaha sawirka ka wada macnaha fahanti wax kale oo maleynaya maadaama sawirka kabkudka soo qaadanay loogadii asaa marka magac soo qaatay kii ujeeda jirtaan wax yar waxa ku daranaa animation okay hadda baliya dhina muuqaalkeena maanta ee course wuxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo image behind sida kan oo kale saaxiib yaal halahaas leewaay wax adag ma laha weliba ani muuqaalkii waa low quality sababtoo waxaan ku duubay kaamirada hore ee TikTok ma fahanti si fiican uma jarmayo backgroundkan waxaa waaye kursi ah gadaalay kursiga anigana space aan u dhexeeyo saasoo mar kursi u jari waaye laakiin aad meel derbi hadii taagantahay ama meel background nadiif aad taagantahay ama afrisid si nadiif ku jira la shaki hadda gacmihii u jeedaa gacmihii si nadiif u jaray ma fahanteen iyo wajiga qaybta bidix
laakiin qabti midig xoogaa wax yar ku jiro taas micnaheedu waxa waa xoogaa mugdi jiro nal yar oo ringalan isticmaalayo aan fahanteen markii saas waa dhibka keenay ma ahan si nadiif u jaraa marka waxaa rajaynaynaa fahanteen soo dhawaada channelkan subscribe noo saar wixii noo dhiirigelin saan u sameyn muuqaal badan mahadsanidin ciao saaxiibayaal hay waxaan rajaynaynaa muuqaalkan ka faa'iiday